Bismillahirrahmanirrahim. Daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu dooran warka warbaahinta codka gobolka Banaadir waxaana kamid ah Madaxweyne Farmaajo la kulmay xogayaha guud ee qaramada midoobay. Ra'iisul Wasaare Khayre oo booqday ciidamo loo diyaarinayo howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin dalka. Duqa magaalada Muqdisho oo kulan la qaatay maamulka gobolka Tokod oo kamid ah gobolada dalka Turkiga iyo wafdi ka socda rugta ganacsiga dalka Turkiga. iyo waaxda caafimaadka dawladda hoose xamar oo daryeel caafimaad u sameysay caruurta agoonta booliska Soomaaliyeed. intaas daawadayaal waxay hayeen qodobadii ugu doorroonaa warka warbaahinta codka gobolka Banaadir waxaad u diyaar garowdaan warkii oo intan ka faahfaahsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wada hadallo wax ku ool ah kula yeeshay magaalada New York xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Madaxweyne Farmaajo ayaa xogayaha qaramada midoobay faahfaahin ka siiyay xaaladda uu marayo dalka Soomaaliya kuwaasi oo isugu jira ammaanka, howlaha bini'aadanimada iyo arrimaha siyaasadda. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay shirka guud ee golaha qaramada midoobay waxa uu magaalada New York kulamo kala duwan kula qaatay qaar ka mid ah madaxda dalalka caalamka ee ka qayb galay shirkaas. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa xerada tababarka General Gordon iyo kulliyadda Jaalasiyaad ku booqday ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo loo diyaarinayo howlgallada Al-Shabaab looga xoreynayo deegaanada ay dalka kaga sugan yihiin. waxaana ra'iisul wasaaruhu sheegay in dowladdu dardar gelinayso 3 arrimood oo kala ah tayeynta, qalabaynta iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida, ciidamada macallimiinta iyo saraakiisha hogaaminaysa. ayuu ra'iisul wasaare Khayre uga mahad celiyay dadaaladooda nafurnimada ah ee ay ku badbaadinayaan dhiigga iyo hantida ummadda Soomaaliyeed. wuxuuna kula dardaarmay in ay door firfircoon ka qaataan howlgallada shacabka Soomaaliyeed looga dulqaadayo dhibaatada Al-Shabaab. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ciidanka ku sameysay dib u habeyn ballaaran ayaa wada qorshayaal dalka looga xoreynayo kooxaha Al-Shabaab. arrintaasi oo qayb weyn ka ah halbeegyada tubta amniga iyo hanaanka ciidamada Soomaaliyeed ay kula wareegayaan mas'uuliyadda dalka. Duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa xalay kulan casho sharaf ah la qaatay maamulka gobolka Tokod oo kamid ah gobolada dalka Turkiga iyo sidoo kale wafdi ka socda rugta ganacsiga dalka Turkiga isagoo kala hadlay sidii ay maalgashi ugu sameysan lahaayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. kulankan ayaa intii uu socday duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Filish waxa uu uga mahad celiyay dowladda Turkiga iyo shacabkeeda sida ay u garab istaageen ummadda Soomaaliyeed xilliyadii adkaa ee la soo maray iyo sidoo kale sida ay kaalinta uga qaateen dib u dhiska caasimadda. wafdiga ka socda dalka Turkiga ayaa ballan qaaday in ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada barnaamijyada lagu horumarinayo caasimadda Soomaaliya iyo in ay maalgashi ganacsi ku sameysan doonaan magaalada Muqdisho. ugu dambeyntiina waaxda caafimaadka dawladda hoose xamar ayaa maanta waxay daryeel caafimaad u sameysay caruurta agoonta booliska Soomaaliyeed. taliyaha xarunta barbaarinta caruurta agoonta booliska Soomaaliyeed General Cali Xirsi Barre Cali Gaab ayaa uga mahad celiyay maamulka gobolka Banaadir deeqdan dawada ah iyo dhaqaatiirta baaraysa caruurta. agaasimaha waaxda caafimaadka dawladda hoose xamar Dr. Maxamed Cadow ayaa ballan qaaday in maamulka gobolka Banaadir uu mar walba garab taagan yahay caruurta agoonta ah ee booliska Soomaaliyeed mar walbana ay ka qayb qaadan doonaan sidii loo hubin lahaa caafimaadkooda. warkii daawadayaal idinkaga imaanay warbaahinta codka gobolka Banaadir waa nageynta.